ومالنتي بقول إيا كونتون إيا شناد إسرائيل دقين بأن عركة دولكا إيا بدا أي كوها يسو مريكا غزة حالد أدق إيا ظروف أدق أيا لغا سو ورينيا عسبتالada ayaa lagu soo warramayaa saacadihii ugu dambeeyay in la keenay dhaawacyada iyo meydadka duqeymihii ugu dambeeyay ee diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay ka geysteen Mareykanka Gaza Rafah iyo Khan Yunis ayaa ka mid ah meelaha duqeynta ba'an Israa'iil ay ku hayso sidoo kale dagaalo xooggan ayaa lagu soo warramayaa inay ka socdaan Khan Yunis oo imika noqotay xudunta dagaalka ciidanka Israa'iil ay awoodooda oo dhan isugu geeyeen sidii halkaasi ay ku qabsan lahaayeen sidoo kale Al Zaytun iyo Jabaliya ayaa ka mid ah meelaha ugu dambeeya ee diyaaradaha dagaalka duqeynta ba'an ay ka geysteen dhanka furimaha hore ee dagaalka markaynu eegno guutooyinka Saraaya al-Qudus ee garabka hubaysan ee ururka Jihad al-Islami ayaa war ay soo saareen waxa ay ku sheegeen iyagoo taageeraya isla markaasna kaashanaya guutooyinka leerada mujaahidiinta Abdul Khadar al-Husayni in ay beegsadeen ciidamo Israa'iiliyiin oo ku sugnaa xaafadda Al Zaytun ee dhacda waqooyiga Mareykanka Gaza iyagoo adeegsanaya qoryaha hoobiyaasha ee 107 cabirkooda uu yahay waxay sheegeen in halkaasi si ba'an ciidanka Israa'iil qasaara ugu geysteen wariyaasha ku sugan Mareykanka Gaza ayaa waxa kale ay soo sheegayaan in diyaaradaha dagaalka Israa'iil goor dhaweyto ay duqeeyeen dhismaha lagu magacaabo Al Masri oo ku yaal bartamaha Rafah halkaasna waxa la sheegay inay deganaayeen dad rayid ah qasaaro balaaran ayaa ka dhashay telefishinka Al Jazeera ayaa goor dhaweyto wariye ka tirsan waxa uu soo tabiyay in diyaaradaha dagaalka Israa'iil duqeyn ba'an ay ku hayaan Al Zaytun oo dhacda dhanka koonfurta galbeed ee Gaza waxaana ilaa hadda halka laga soo warinaya dhimasho iyo dhaawac inay ka dhacday sidoo kale diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa la sheegayaa in xaafado iyo guryo ku yaala dhanka bariga Khan Yunis oo dhacda koonfurta Mareykanka Gaza duqeyn ba'an maanta ay ka geysteen waxa kaloo ka mid ah meelaha la duqeeyay guri ku yaala xaafadda Nusrat ee bartamaha Mareykanka Gaza halkaasi oo la sheegay in ciidamada Israa'iiliyiintu ay ku beegsadeen dad badan oo rayid ah dhanka Beit Hanun ee waqooyiga Mareykanka Gaza ugu yaraan 20 ka tirsan dadka Falastiiniyiinta ee rayidka halkaasi gabaadka ka dhiganaya ayaa la sheegay inay ku geeriyoodeen dhanka militariga Israa'iil waxay sheegeen in dagaalada ugu dambeeyay ee dhacay saacadihii la soo dhaafay ay ku dileen ilaa iyo 24 ka mid ah dagaalyahanada Falastiiniyiinta ma jiro wax war ah oo ka soo baxay guutooyinka Al-Qassam iyo Saraaya al-Qudus oo ku aadan sheegashada ciidanka Israa'iil ee ku aadan inay dishay in ka badan 20 dagaalyahanada Falastiiniyiinta laakiin waxa wararkan sidoo kale ay sheegayaan in ciidamada Israa'iil ay sheeganayaan inay wadaan hawlgallo ay ka wadaan dhanka waqooyiga Mareykanka Gaza tahay wararkii ugu dambeeyay waxa ku jiray in Mareykanku ay leeyihiin waxaynu dekad ka dhisaynaa xeebta Mareykanka Gaza haddaba goor dhaweyto waxa warbaahinta la hadlay afayeenka waaxda gaashaandhigga waddanka Mareykanka Patrick Ryder waxa uu sheegay in ay haatan qorsheynayaan in 1,000 askari oo ka mid ah ciidanka Mareykanka la geyn doono xeebaha badda Gaza kuwaasi oo sheegay inay ka qayb qaadan doonaan hawlaha dhismaha dekadda ku meel gaarka ee Mareykanka halkaasi uu ka dhisayo horey madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden ayaa meesha uga saaray in ciidamadaasi ay tagi doonaan gudaha Mareykanka Gaza ama dhulka waxa uu sheegay inay ku ekaan doonaan oo kaliya dhanka xeebta arrintan xaray si baan waxa uu dhalilay xoutiyiinta oo ku tilmaamay inay tahay arrin Israa'iil ugu gacan siinayo wararka arrimaha qasaaraha dagaalka haddii aynu eegno wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniyiinta ayaa war ay soo saartay goor dhaweyto waxay sheegtay in 10 xasuuq Israa'iil ay ka geysatay Mareykanka Gaza 24 saac la soo dhaafay 82 qof ayaa ku dhintay 122 qofna waa ay ku dhaawacmeen tani waxay ka macno tahay 30960 geerida Falastiiniyiinta imika inay marayso dhaawacu waa 72524 qof waa tahay wararka dhanka diblomaasiyadda waxaynu ku eegaynaa banaanbaxyo ballaaran ayaa ka soconaya bishii 6aad oo xiriir caalamka meelo kala duwan oo kamid ah waxaana looga soo horjeedaa dagaalka Israa'iil ku hayso Mareykanka Gaza haddaba magaalada New York ee waddanka Mareykanka muddooyinka banaanbaxyo ballaaran ayaa ka dhacaya laakiin xalay banaanbax rabshado wata ayaa halkaasi ka dhacay kadib markii ay isku dhaceen banaanbaxayaasha iyo ciidamada booliiska ee waddanka Mareykanka waxaana la sheegay halkaas in lagu qabqabtay ilaa iyo 20 ka mid ah dadkii banaanbaxayay kuwaasi oo booliisku la sheegay in xitaa u geysteen jirdil
mas-uuliyiin ka mid a dadka banaanbaxyadan qabanqaaminaya ayaa waxay sheegeen in booliisku uu ku sameeyey xadgudub iyagoo banaanbax nabadeed dhigaya keliyan ay wateen calanka Falastiin isla markaasna ay ku dhawaaqayaan ereyo ay ku taageerayaan Falastiin ayna kaga soo horjeedaan dagaalka Israa'iil ku hayso Mareykanka Gaza laakiin waxay yiraahdeen booliisku ma ahan in banaanbax nabadeed uu soo farageliyo iyadoo taana la sheegay in aad loo dhaliiray ma jiro wax warar ka soo baxay dhanka booliiska oo ku aadan rabshadahan xalay ka dhacay magaalada New York magaalooyin kale oo caalamka ka mid ah banaanbaxyo kale ayaa maanta ka dhacaya magaalada London ayaa ka mid ah oo banaanbax ballaaran iminkaba uu ka soconayo bartamaha magaalada London wixii warar arrimahan ku soo kordha iyo banaanbaxyadana barnaamijyadana soo socda ayaynu ku eegi doonaa dhinaca daanta galbeed ee Israa'iil xoog ku haysato dhulka Falastiiniinta haddii aynu eegno kooxda la magac baxday guutooyinka mujaahidiinta oo ka mid ah garabka hubaysan ee ururka Fatah ayaa waxay sheegeen in ay ugu baaqayaan dhammaan dadka Falastiiniyiinta in ay u kacaan sidaas kaga qaadan lahaayeen heeryada guumaysiga inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan waxaana kooxdu ay sheegtay inay u diyaar garoobayaan iska hormaadii ay la galaan ciidanka Israa'iil dhinaca kale telefishinka Al Jazeera ayaa war uu gordhow tibiyay waxa uu ku sheegay in xerada Nuur Shamsi ciidamada Israa'iiliyiinta oo halkaas hawlgal ka waday qarax lagula eegtay ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhanka Israa'iil oo ku aadan qaraxan qasaaraha ka soo gaaray ciidankooda goor sii horeysay oo maanta ah magaalada Tulkaram waxa isku helay guutooyinka Saraya al-Qudus gaar ahaan guutada la yiraahdo Tulkaram iyo ciidamada Israa'iil waxaana la sheegay halkaasi in isku horimaadyo culus ay ka dhaceen ciidamada Israa'iil oo wata gaadiidka dagaalka iyo waliba cagaf-cagafi ayaa la sheegay in xeradaas saaka waa bariga ay soo galeen laakiin halkaasi waxa kaga hortagay kooxaha Falastiiniyiinta oo adeegsanaya qoryaha darandooriga u dhaca lama soo sheegin qasaare ilaa hadda dhinacyadaasi soo gaaray laakiin waxa la leeyahay deegaanka madaafiicda iyo rasaasta ay soo gaarsanayeen labada dhinac ayaa dadka saaki walwal weyn galiyay dhanka koonfurta Lubnaan iyo waqooyiga Israa'iil oo xiisadu ay ka dareyso haddii aynu eegno xalay abaanduulaha ciidanka Israa'iil Herza Halevi waxa uu sheegay inay isku diyaariyaan ciidamada Israa'iil duulaan dhanka dhulka ah oo ay ku qaadaan Xisbullah iyo koonfurta Lubnaan hanjabaad kor ayaa ka imaanaysa Israa'iil oo waxay leedahay Hamas iyo Lubnaan kuma quustaadanayaan waxa ka socda Mareykanka Gaza laakiin Xisbullah hore waxay u sheegtay in Israa'iil haddii duulaan ay ku soo qaado ay noqon doonto markii ugu dambeysay ee Israa'iil jiritaankeeda uu jiro sida uu leeyahay mid ka mid ah mas'uuliyiinta ugu sarsaraysa dhanka ciidamada ee Xisbullah haddaba dhacdooyinkii ugu dambeeyay waxa ka mid ah in dagaalyahanada Xisbullah saaki ay beegsadeen deegaanka la yiraahdo Al-Baghdadi oo dhaca waqooyiga bari ee Israa'iil waxaana ay sheegeen halkaas in gantaal ay toos ugu garaaceen geesta kale diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ayaa waxa la sheegay in ay duqeeyeen magaalada la yiraahdo Mashdalzun wali waxay u adeegsadeen kiimikada loo yaqaano fosforoska cad ma jiro war rasmi oo ka soo baxay dhanka dawladda Lubnaan marka laga reebo wariyaasha aagaasi ku sugan oo sheegay inay arkayeen suntaasi qiic cad oo halkaasi diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay u adeegsanayaan waatahay iminka waxaynu eegaynaa dhanka Yaman iyo xiisada badda cas oo xiisaduna ay ka sii darayso maantana la sheegayo in xogaga Xuutiyiintu ay qaadeen mid ka mid ah weeraradii uga ballaarnaa militariga Mareykanka ayaa sheegay in kooxda Xuutiyiintu ay fuliyeen subaxnimadii hore ee saaki oo Sabtiya weerar ballaaran oo ay ka geysteen badda cas iyo gacanka cadmeed iyagoo adeegsanaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada plastika warkan ka soo baxay Mareykanka ayaa sidoo kale waxa qiray afayeenka xogaga Xuutiyiinta Yahya Sariic taliska dhexe ee ciidanka Mareykanka ee magaciisa loo soo gaabiyo Centcom ayaa sheegay in dhulka soo dhigeen 15 diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ay soo direen xogaga Xuutiyiinta sidoo kale kooxda waxay laba gantaal nooca plastikada ay ku weerareen markab sitay calanka Singapore oo gooshayay gacanka cadmeed taliska Centcom ayaa sheegay in ka hortageen weeraradaasi ka dhacay badda cas howlgalkan ayaa waxa la sheegay inay ka qayb qaateen xulafada Mareykanka waxaana lagu burburiyay laba gantaal oo ah nooca lidka maraakiibta oo ku rakibnaa goob laga soo ridi lahaa markabka ayaa waxa la sheegay in la weeraray shalay galinkii dambe saacadu markay ahayd 3:55 daqiiqo sida lagu sheegay warka ka soo baxay taliska dhexe ciidanka Mareykanka markabkan la weeraray oo Singapore laga lahaa ayaa lagu magacaabaa MV Purple Virgin waxaanu ka badbaaday weerarka Xuutiyiinta